امتحانكي مالتي لبعض امتحان شهادي قاعد عطير بطلان لحية طبعا كرة أربعي أيها فريستي مالتي كوات سيقول يضرني وأبو قصة معري ما أنت لو مالتي لبعض ما أنت راسلي خرى أي قضاء يستفي عن آد لو أقول التريد أكثر معرك يعني هو قصة معي إنه كم عدد خميس تقصد بالوضع ولهان دولة أنا آد يابد غيبات إن دعوة كجود بسين قادح برا هذا القصة يرى أنت معك كجرا والله حوي أنت مسؤولك هيدا تعرف دولة الفدرال كا لا شيء ما عمرتي كويت مركي لواتنا ما عمر بدل أي مسؤول waxaan jirin tacliinta Puntland ka sameeyay wuxuu sheegay in imtixaankii baxayna ma jiro wasiirka isaga imtixaankaas meesha uu baxay iyo caddaynteedii isaga ka rabnay caddaynta haddii uu keeni waayo inuu apologies iyo xaalmarin ka bixiyo haddii intaas sameyn waayo waxaanu faraynaa madaxda dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayr wasaaraha wax badan ayaa laga cawday wasiirkaas talaabadii sharci ahayd oo ku habboonayd horena waa u leeyahay haddana waa leenahay inay ka qaadaan marka idinka dacwadiina maxay ku salaysnayd oo aad gudbisay wala dacwadayda waxay ku salaysan tahay wasiirku waxaanu fahamsanayn federal systemka dowladdan ay qaadatay dowlad federaal baynu noqonnay arrimaha bulshada dowlad goboleedyada ama dowladaha ka midka dowladda federaalka ayaa حق له الرئاس مركز فدرال كما خصيان وحبرشة جود أو منهج جود إنه دقوا أو مفلوه بيجين دوران سبيجين أيوم بيلين لكن منهج فلنتا ضمن كستا وقمدا أما دولة كستا وقمدا دولة فدرال كيرا أي عمر حنان أرنكا سودان مرسين هاي المركز وحيرتها دبرها قراركو إنه كرتان أرنكاس دراسة لعانتا إن state walba uu u madax bannaan yahay arrimaha bulshada oo barashada ugu horeysa caafimaadka ku dhigo oo wax kasta oo arrimaha bulshada ay u madax bannaan tahay dowladda samidka dowladda federaalka taas ayay garan lahay oo sharci darro ah xeerkii iyo qaanuunkii lagu heshiiyey iyo dastuurkii oo qabyo ah oo aan weli gabagaboobin oo dhammaystirmin heshiisyadii lagu gaaray ayuu jebinayaa siyaabaha aan u dacweynayno sidaas siyaabahaasa ka mid ah marka wasiirku shalay wuxuu yiri imtixaankii Puntland ay qaaday wuu fashilmay muxuu arkay wasiirku waxa la wuxuu arkay garan waxaan malaynayaa meelaha shaytaan baa u sheegay meel uu ka keenay ma naqaano isaga ayaa laga rabaa oo aanu marti uga nahay in uu caddeeyo meeshii uu ka keenay warkaasi meesha uu uga yimi haddii uu caddeyn waayo la keeni waayana waxay la tahay waa ninkii sheegay ma dhaafto marka mal xiriir ma la samaysteen marka warka maqasheen waxay la sameeyay ma jirto hada yaraatay ninkani waxa uu ka hadlayay oo dowladka Hirshabeelle ayuu wuxuu ku dirqiyay inuu ku khasbo inay galaan imtixaanka dowladda federaalka ee fashilmay 2 wiil 3 wiil hor waa taasoo ku khasbayay inay la soo xaq weeyeen in ay imtixaan weeyeen oo dajistaan oo ay saxdaan inay iyagu samaystaan oo dajistaan waxa la wixii ay u baahan yihiin Puntland oo ku saabsan waxbarashada habka loo soo habka loo dejiyo goboleedyada oo dhan ayaanu diyaar u nahay inaanu ka taageero oo aanu tababar ku siino wixii aqoon uga dhiman hadda ka hor wasiirku xilli uu hadlay waxa uu sheegay in Puntland ay diiday in imtixaanka ka qayb qaadato xurguftii hore ma la xaliyay mise tan tii hore daba joogtaa tii hore way daba joogtaa waxa la oo keenay markii hore ma jirin dalatrada ka sare dowladda Puntland ku jira ayaa dhex galay arrinta waxay isku ogaayeen wixii isku ogaayeen waa ka shilay buriyay marka waa ka fiye kala dheeri waxay sanadarada isoo ku heshiiyeen hadana waa ka baal maray marka waxay la tahay inuu u yahay inaan cidna dhageysanayn marka idinku hadda hadii dacwadda gudbiseen wax laga qaban waayo maxaa xaalku noqonayaa xaalku wuxuu noqonayaa marka in dowladda wuxuu doono iska sheego oo ay dowladnimo aan jirin bulshada Puntland guud ahaan gaar ahaan waalidiinta iyo dadka ardayda imtixaanka galaysada waxaan u sheegayaa inay ku kalsoonaadaan inay ku kalsoonaan sidaan imtixaankooda 16 sanadood oo la soo dhaafay wax
yaraatee inaanay ka qabin imtixaankooda sida ay hadda ugu socdo oo wanaagsan inuu ku dhammaado wasaaradooda iyo howlwadeeladooda iyo dowladooda